aadan bile maxamed waa aabbo Soomaaliyeed ku nool degmada Xudun ee gobolka Sool waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. 11 sano ku dhawaad uu ku noolaa degmada Xudun sida uu sheegay. Wuxuuna ka shaqeyn jiray raacidda xoolaha magaaladaasi. Taa beddelkeeda waxa soo food saaray dhaqaale xumo aad u baasan. Markii la joojiyo shilinka Soomaaliga wuxuuna dareemayaa xanuun ka haya lugta iyo dhabarka. aadan waxa uu gargaar weydiistay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama uu ku hanweyn yahay inuu ku laabto deegaankiisii isaga iyo carruurtiisa oo kala jooga meelo kala gedisan. Sidoo kale waxa uu sheegay in duruufaha nololeed uu ku jiro haatan ay tahay mid aad u adag. الرحمن الرحيم أنا واحد آدم بلا محمد آدم بلا محمد على أيام هذا وحنقول شيء قبل كسمايو ما نقول شيء نواحي كذا حقمية وحبطناته مركا ولا نيال مركا وحن لا هاي أنا خاطر واحد دقنا النوال مال خميدة يقول لي حضن كوي مثلا أيام شوي وحن راعي ريها لرعاء أروش أيام راعي دور سرو marka hadar waan iska daayay xanuun ila soo gudboonay awdeed ayaan u daayay oo lix xanuunsan ayaan hay marka iyo waliba dhaqaalahooda iska xumaaday hadii ay kulay markii kaashkii la waayeen dhaqaalahooda iska xumaadeen marka iyo dana kale gaar ahaan xanuun bay ila soo gudboonaaday iyo waliba waxaan hanin carruurtiisa halka ka biilasho carruurtiisa kala yaacsan saddex meelood beledweyne iyo wajaal iyo qardhay carruurteeda kala joogeen halkaas carruurteeda ka biilan jiray marka xanuun bay ila soo gudboonaaday hawsha iska dhibanaatay laakiin waxa dhacday marka in hawshii aanu bixi kari waayo in muddo hadda 8 bilood bilaa shaqaan iska ahaa oo ariga waan ka fadhiistay marka sida darteed waxaan ahay ninkaas oo 12 sano xudun joogay kulliba maxaan ku yiraahdaa alxamdulillaah rabbil caalamiin marka xanuun baa ila soo gudboonaaday waxay jirtay dhaqtar iyo waxaan baan u baahday marka waxaan doonayaa walaalayaal inta muslimiinta walaalaha in la soo caawiyo oo wax la taro ayaan doonayaa xanuunkaas iyo soo ila soo gudbana awdeed iyo waliba wadankii aan niyadan ku hayo carruurtii inaan ma isku keenay dabeetana aan ka hayo wadamada aan geeyo dhaqaalaan ku geeyana ma haysto tan igu daran xanuunka caafimaadka hadda wanaagsan bil caafimaad baan hay xanuun baa haya dhaqtarna waan doonayo dhaqaalaan ahay marka sida darteed marka walaalayaal waxaan doonayaa inta muslimiinta walaalaha inay soo caawiyaan waxay taraan marka walaalayaal waa dantaasaan leeyahay xanuunka bay ugu daran oo hadda ma dhaqaaqi karo marka waxaan doonayaa walaalayaal inta muslimiinta walaalaha baahida ay hayso in la iga soo baahitiro marka xaaladahaas ayaa jira marka in wax la qabto oo la caawiyo ayaan doonayay laba arrimood oo ugu daran bay haysta xanuunka iyo carruurteeda kala yaacsan waa doonayay wadanka inaan ku xeeyo wadanka wadan fog way Kismaayo wixii ka shisheeya ayaa carruurtii damacay inaan ku haysto marka dhaqaalaha isku keenana ma hayo iyo xanuunkii ugu soo kordhay oo dhaqtar aan u baahanahay marka sidaa darteed arrimaha isla soo gudboonaaday iyo bagamadooda imanka anu aan ahay in wax laga taro ayaan doonayaa walaalayaal marka waxa weeyaan ninka walaalka ee kowte ana soo doontay oo maxaan ku raadayay baahida ay hayso awdeed baan u soo doontay mana kabarda inuu caawiyo marka wiilkaas wuu caawiyay ilaahay ma hadlay marka waxaan ku raadayay ana in muddo raadinayay baahida ay hayso awdeed oo kabrahaasi doonistu dib igu haydo ilaahay ila kulmiya wuu caawiyay way caawiyay ninkaasi marka alxamdulillaah rabbil caalamiin saas arintaydu tahay marka walaalayaal aad iyo aad baan ninkaas soo dhaweeyay oo kabarda igu soo dhaweeyay marka baahi weyn baan ii haysay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin walaalayaal marka waxaan ka doonayaa kan caawiyo kabarda igu caawiyay iyo islaamka ilaahay muslimiinta walaalaha in arrimaha ay sheegtay wax igala qabataan ayaan doonayaa la igala qabto marka saas baahida ay tahay marka walaalayaal xanuunka igu sii daranay hadda ma shaqaysan karo aadin baa la iga haya dhabarka la iga haya marka xanuunkaygu aad ugu farbadan yahay tan baagamadooda igu daranay marka waxaan doonayaa walaalayaal in soo wax la taro wax la qabto ayaan doonayaa واي ان شاء الله ان شاء الله واي ان شاء الله واي محمد عويل كوته دقمة حدنا قبل كسول